Asalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan idinla wadaagayaa muhiimadda ay leedahay marxaladda dhallinyarnimadu iyo siyaabaha looga faa'iidaysto. Slaydka koowaad, marxaladda dhallinyarnimadu waa nicmo runtii aad u weyn, waana mid ka mid a maraaxisha ugu waaweyn ee qofka cimrigiisa uu maro. Waa xilliga qofku uu xoogga leeyahay oo uu firfircoon yahay, si dhaqso ahna uu wax u baran karo. Bulshadu waxa ay ku tiirsan tahay oo aasaas u ah, yacni dhallinyarnimada ama qofka dhallinyarada ah xooggiisa iyo sideeda looga faa'iidaysto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inoo tilmaamaya awoodda qofka dhallinyarada ah uu leeyahay, waxa uu yidhi: Allahu aladii khalaqakum min dacfin thuma jacala min bacdi dacfi quwa. Ilaahay waa midka idinka abuuray tamar darri kadibna idinka dhigay kuwo xoog leh, waana marxaladda dhallinyarnimada. Haddaba, muhiimadda ay dhallinyarnimadu leedahay islaamka dhexdiisa. Islaamku waxa uu muhiimad siiyey dhallinyarnimada ihtimaamsiin aad u weyn. Waa yididiilada ummaddu ay leedahay iyo mustaqbalkeeda, sababtoo ah xoogga iyo mustaqbalku waxay ku jiraan qofka dhallinyarada ah ee waxa weeye soo kacaya. Nabiga calayi salatu wasalaam isagoo muhiimadda dhallinyarnimadu leedahay inoo tilmaamaya waxa uu yidhi: sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma ilaa dilluh shaabun nashaa fii cibaadati illah. Toddobada carshiga ilaahay harsanaya iyadoo aanu har kala jirin, waxaa ka mid ah qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray. Dhallinyarnimadu waa mas-uuliyad. Maalinta aakhiro waa laysa su'aalayaa qof kastaa wixii uu ku soo baadiyey dhallinyarnimadiisii. Waqtiguna waa mid si dhaqso ah u soconaya, haddaba ka faa'iidayso. Nabiga calayi salatu wasalaam xadiis baa wuxuu ku leeyahay: laa tasuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can cumrihi fiima afnaah. Ka suuli mayso gomadaha addoonku maalinta qiyaame in ilaahay agtiisa ay ka dhaqaaqaan ilaa la su'aalo cimrigiisii waxa uu ku soo bixiyey. Haddaba sidee dhallinyarnimadeena uga faa'iidaysanaa? Waxaan uga faa'iidaysanaynaa almuxaafadatu cala asalaati, qofku salaada inuu ilaaliyo, talabulcilmi inuu cilmiga barto, istiqlaalu lwaqti waqtiga inuu ka faa'iidaysto, iyo albucdu can almacaasi macaasida inuu ka dheeraado. Nabiguna waxa uu yidhi: iqtanim khamsa qabla khamsin, shan ka faa'iidayso intaan shani kuu iman. Waxaa ka mid ahaa shabaabaka qabla haramig, dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso intaadan gaboobin. Haddaba fariintan ugu dambaysa waxay tahay aan kusoo gunaanadayo: dhallinyarnimadu waa fursad aanad beddelkeeda helayn. Saa darteed noqo qof lagu dayan karo oo wanaagsan, ummadduna adiga ayay khayr kaa sugaysaa. Ilaahay dhallinyarnimadeenna haynaga dhigo kuwo muslixiina oo ka faa'iidaysta. Aad baa u mahadsantihiin. Muuqaalkan sii faafi si walaalo fara badan ay uga faa'iidaystaan.